मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। ma dhacdaa inaad murugotid oo aad shallaysid oo naftaadu ay ka xishooto inaad rabbigaa dambidhaaf weydiisatid? ma dhacdaa heer uu shaydaanku uu ku gaarsiiyo in micnihii aad aamintid in xataa ilaahay ay ku adag tahay in dembigaadu uu kuu dambi dhaafo? ma dhacdaa inay micnihii shaydaanku uu ku gaarsiiyo heer maxaanku dhaa micnihii aad aamintid in dembigaadu aad iyo aad u badan yahay, 5 sano 10 sano 2 sano aad xumaantaas soo samaynaysa, maantana aad aamintid micnihii aad maxaanku dhaa 90% aad aaminsan tahay inaad daahsan tahay, inaad daahday, in maxaanku dhaa xilligaan aysan ahayn xilligii toobada, in micnihii aad aamintid in dembigaadu aad u tira badan yahay, kadib markaas aad aamintid ilaahay inay ku adag tahay inuu maxaanku dhaa uu kuu dambi dhaafo, ama aad aamintid inaan lagu dambi dhaafi karin. heerkaas ma taagan tahay? haddii jawaabtaadu haa tahay, waxaa raba inaan kuu sheego fikirkaasi waa khalad, maxaa yeele shaydaan ayaa ka dambeeyey. waxaana kuu sheegaya qaabkuu khalad ku yahay. insha allah haddaad hal mar dib ugu noqono qur-aanka, waxaan gaari doonaa biidnillah, anigii adi waxaan gaari doonaa heer wax walba aan sameyno aysan marnaba maxaan ku dhaha rajada ilaahay aysan insha allah qalbigeena ka bixin, shaydaana markaasuu awood u yeelan in maxaan ku dhaha uu naga dhacdhacsiiyo in aan soo daahay, kadibna markaas dembigeenu aad u tira badan yahay, kadibna markaas ilaahay uusa ii dambi dhaafeen. waxaa rabaa inaan kuu sheego, intaana kuu sheegin naxariista ilahay xaggiisa ka timaaday adigu kuu socota, waxaa raba inaan kuu sheego naxariista ilahay xaggiisa ka timaaday oo ku socota gaalka. gaal keli ma aha. waxaa raba inaan kuu sheego naxariis ku socota kan ilaahay caayay. waan ogahay adiga weligaa ilaahay maa caayin. waxaa raba inaan kuu sheego naxariista ku socota kan rasuulka sallallahu calayhi wasalam dhibaateeyo oo caayay oo kartoon ka sameeyey oo wax walba xumaan u geystay. micnaheedu waa maxay? gaalka kan ugu xun baa raba inaan micnihi aan kuu sheego naxariista ilahay xaggiisa ka timaaday oo ku socota gaalka kan ugu xun. intaana kuu sheegin adigoo muslina naxariista ka timaada ilahay xaggiisa oo adig kugu socota. ilaahay wuxuu yidhi qofka gaalka ah hadduu intaasoo sano maxaan ku dhahay soo caaseye, kaba soo qaad nin baa wuxuu jiraa 70 sano. 70kan sano gaal keliya ma ahayn oo qof iska gaal oo meelis iska marya ma ahayn, wuxuuba ahaaba qof u taagan diinta ilaahay iyo rasuulka nabiyullah maxamed sallallahu alayhi wasallam sharaftiisa iyo ilaahay in wax ka sheego. kaas waa gaalka kan ugu xun soo ma aha? okay, haddii ninkaas uu soo islaamo oo maanta keliya uu dhaho ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu warasuuluh, hadduu islaamo oo kelimadaas uu ku dhawaaqo oo islaam dhaba uu noqdo uu micni soo islaamo, ilahi wuxuu mataqaanaa waxaan kaa soo qaadayaa inaad tahay cunug xala dhashay. macnaha maxay? wax dembiya male. cunug markuu xala dhashay dembi u leeyahay? may. adiga gaalka ah oo 80 sano gaal soo ahaa, maanta markaas soo islaamtay waxaa lamid tahay cunug xala dhashay, wax dembiya ma lehed. maanta camal bay ku bilaabanaysaa xisaabtaada. lana soco wixii horena waa lagaa micni ilaah uu kaa cafiyey uuna kuu dambi dhaafay, waxaana lamid tahay cunug xala dhashay. yaa rabbi, mani 80 sano adiga iyo rasuulkaaga iyo diintaada iyo wax walba rabbiyo xumaan u geysay, intaasan u taagnaa oo lacag ku bixinayo oo intaas wax ku bixiyey, ayaa maanta markuu soo islaamay oo dib kugu soo noqdo oo ku rumiyey, ma waxaa ku tiri waxaasoo dhan 80 sano dhan wax xumaan soo samaynaysa waa u dambi dhaafay? yaa rabbi naxariistaadu weynaa. rabbiyo haddiiba gaalkii ninka gaalkaa aad saa ugu naxariisatay oo waxaasuu xumaana u tagna aad u dambi dhaaftay, rabbiyo waxaa raba ina ogaado qofka muslimka oo ku aaminsan rasuulkaagana aaminsan, weligaana wax kaa sheegin, rasuulkaagana wax ka sheegin, rabbiyo hadduu kuu soo noqdo oo dambi dhaaf uu ku weydiisto maxaad u ballan qaadaysaa? rabbiyo ma sida gaalka oo kale rabbiyo asina cafinaysaa? taas wax weyn waaye. rabbiyo bal anigana ii sheeg qofka muslimka hadduu kuu soo noqdo xumaan waan soo sameeyey, waan caasiyey, naftayaan soo dulmiyey, laakiinse rabbiyo maxaad igu bashaaraynaysaa? waaban ogaaday gaalka waxa ugu bashaaraysay. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله لما سوى كوبي كرو لكن سو حربا آيات أورس أو كلي إن دول استاجو أنت كلا وقت ما هايو حتى أنا مالين كلا إن شاء الله دول استاجيا لكن سمانتو حربنا يعني وحير عن كفهن آيات أورس كلي أن آخرين ومحيهد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وأنا أذكر سورة الفرقان يعني بق قدام بيل لما ركب مقرني أوكي. waxaan soo ogaanay gaalka macna ilaahay wuxuu ugu bashaareeyay ilaahu anigu muslim maxaa ugu bashaaray saataan kugu soo noqdo ilaahay wuxuu yiri gaalka markuu ilaahay muxuu sameeyay tusaale gacantan aad u jeedid waa buur kaad ka soo qaad waa buur wax soo dheer okay buurta waxa waaye waa xumaantu gaalka sameeyay marka xumaan buu sameeyay intaas ahayd haddana xumaan kale sameeyay wasiibaat ilaa macna buur camal ay noqotay macna korbi aado okay qofkan gaalka markuu ilaahay u soo noqdo ilaahay muxuu sameeyay xumaantii maxaan ku dhaa buurteed ayuu ilaahay meesha ka saaray wuu qariyay macna markaas qofkan had wax xumaan ma sameeyo abir ilaa dambiga soo dambi dhaaf laakiin qofka muslimka markuu ilaahay u soo noqdo ma taqaan wuxuu macna ilaahay sameeyay ka soo qaad waxaan wax xumaanta sameeyay xumaan baa sameeyay way baato macna si buurta camal ka noqoto wax dheer bay noqoto okay ilaahay marka u soo noqotay si gaalka kale maxaan ku dhaa ilaahay dambiga ma qarinayo oo ma ka tirtirayo dambigii oo saan u taagan oo aad sameeyay ayuu ilaahay wuxuu u bedelayaa wanaag aad waliga shaqeysan waa dambigii ba waxa loo bedelay wanaag ilaahna wuxuu yiri aniguna waxa ku ballan qaadiya waxaana aqliga galan inaan kuugu bashaareeyo taas ah xumaantii aad sameysay ayaa waxaan u bedelayaa wanaag aad waliga shaqeysan markaas ilaahay yiri fa ulaa'ika yubaddilu Allahu sayi'aatihim xumaantii ba waxa loo bedelayaa xasanaat wanaag baa loo bedelayaa buur xumaan aad sameysay maxay noqotay buur ajri aad waliga sameyn yaa rab anigoo ilaahay haysta ma laga yaabaa shaydaan inuu u yimaado u yidhaho kaale Abdiraxmaano waxaad ogaataa waliga inuusan ilaahay ku dambi dhaafin ilaahayna wuxuu leeyahay kaale Abdiraxmaano hadaa si kale ilaaba igu soo noqotid waxaan ku sheegay xumaantii ayaa waxa u bedelaya wanaag xumaantii ma ka tirtiriyo iyada xumaantii oo taagan ayaan waxa u bedelaya wanaag ilaahay waxaan ka barayaa aniga aad inuu naga dhigo kuwa mar walba toobad keena runtii mawduucaas waa mawduuc muhiim ah waxaan isku diyi doonaa insha Allah inaan sii wado laakiin maanta waxa raba inaan ku fahansiiyo hadduu ilaahay gaalka macnihi uu yiri xumaantaada waa ka tirtiraya ilaahani aniga aad wuxuu yiri ma ka tirtiraya waxaan u bedelayaa wanaag ilaahay waxaan ka barayaa aniga aad inuu naga dhigo kuwa mar walba ilaahay xaqiis macni u soo noqdo oo toobad keena si kale laaba u toobad keena si markaasi
buuraha dambiyaasha aan lahayn ilaahay uu nagu bedelo buuro maxaan ku dhaha xasanaad iyo wanaaga markaasna ilaahay uu nagu naxariisto yaa rabbi waxaan ku weydiisanaa inaad nagama dhigtid addoommadaada kuwa mar walba kuu soo noqda yaa rabbi amiin marka fadlan sii shargara si markaas walaalaha kale u gaaro waxaa laga yaabaa in yani muuqaalkan u arko walaal kale maxaan ku dhaha dembi badan sida aniga adoo kale markaasna maxaan ku dhaha shaydaanku uu ku waswaasiyo oo dhaho war adiga dambiga mala dhaafi kare iska sii soco laakiin waxaan kuu sheegaya waxaan haysanaa allah غفور رحيم جعل إنه أدميس قدام دافع إلى أن حنك بري عني هذا إنه نجمع دقو محن كلها كل مرة بوصل نقطة مركزنا قدام دافع وأنا ما سنتين هدوب إله قالك سأقول حرستي أديك إنه حد وقاتا ساس أيكون حرستي إله يكون عليه هاي عن مرة بوصل نقطة وما سنتي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وسلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي